dhibaatada uu Daahir Cali Sow ku hayo hablaha Soomaaliyeed ayaa xadhkaha goosatay waxaana idin daawadsiin doonaa muuqaal loo soo diray isaga oo live-ka markaasi maxkamad beenbeena oo social media hadda ka furay isagoo leh walaasha gabadh ayuu la hadlayaa waxa uuna leeyahay walaasha ayaan soo dhigayaa baraha bulshada gabadhaasina waa gabadh Soomaaliyeed oo kale oo nin kale muuqaal ka duubay iyadoo dharka iska bixinaysa siday doontaba ku dhacday haddaba dhacdada naxdinta badan ee aan maskaxdaydu qaadan weyday ama qalbigaygu qaadan waayay waxay tahay in gabadh Soomaaliyeed ama barnaamijka markay sameynaysa khaldanid ama saxsanayd bee siday doontaba ha noqotee inuu ugu hanjabo oo media yiraahdo haddii maxkamadan loo hoggaansami waayo gabadhan ayaan fiidiyohooda soo dhigaya internetka markii dambena uu kaga dhabeeyay oo muuqaalkan idinma daawadsiin karo si la xidhiidha sharafta gabadhaasi Soomaaliyeed annagoo ixtiraamayna hablaha Soomaaliyeed ixtiraamka aanu hayno darteed muuqaalka Daahir Cali Sow ugu booteynaya gabadhaasi waa mid aad iyo aad u dhaqan xun oo haddii aad daawatid aaronaysid talow maxay tahay Daahir Cali Sow sababaha ugu waaweyn uu ka faa'iido dumarka caydooda inuu muuqaaladooda raadiyo iyo inuu internetka soo dhigo horta saaxiibayaal aan idin daawadsiiyo muuqaalka uu gabadh la soo hadashay oo gabadhaasi waa gabadh kale oo walaasheeda muuqaalka aan idin daawadsiiyo dhahay videoga ahaysid meesha maxkamad fiiri adiga dhigayso I don't give a damn about your bullshit maxkamadeeda ma fahanti afta walaasha ma tabiso maaha haye maya ku dhufinaysid Daahir Cali Sow war gabadha walaasha ma tabiso maaha ariya ma tabiso maaha I don't need to explain to you inaan ku explain garay maahan ma tahay mise maaha la ooyine Cali Sow war soo fasaxan ku dhahay war ma tahay mise maaha haddaad videoyaasha adi soo fasaxin dhigayso mudgal wad ooyisa qolka maxkamadda tabaa ooyisa la marba ooy maxkamadda ooy ma qorto waastaadii qofkan ma tahay walaasha ariyaama ma tahay nin drug dealer ma tahay ma qaba nin caraba fiidiyogeeda kan ma yahay afar su'aal ka jawaab maxaa la ooyisa baastaradii xunta meesha maxkamad weyn maxaa qabtaa meelaha dhuqdhuq loo doon ka jawaab su'aalaha hadda ka jawaab kasoo buudkii baastaradii meesha maxkamad waxaad u qabtaa meelaha xilal loo doon sheegayna casadka ka jawaab su'aalaha Daahir Cali Sow ani waxaan ku leeyahay yaa ma tahay qoftaan hay ma ka jawaab war nin rag hadaa tahay anaa ku maxkamadda sheegay ma دجني وانا دجني نضاف وحنيو رجاسي رجاس رش ماشي مال وحدين سبب الظاهرو رجاسي رجاس رش نجا فترة محيا هاي بس كسر دورنا محمد هايستجس هيدك محكمة هايستجس وانا اركي يا لا محكمة ماني فيس الا هذا maxkamadda fadhi ku dirnay ka dhigay walaalo bal muuqaalkan kalena daawadayaal aan idin daawadsiiyo isaguna waa mid kale oo uu wiil dhalinyaro ah oo jabra lagu magacaabo oo magaalada Garowe waqti xaadirkan ku sugan isagoo la fixifaaltamaya oo leh haddii aad gabadh yar ka hor timaado beerka ka laad haddii wiil yar ka hor yimaado beerka ka laad haddii oday weyn ka hor yimaado beerka ka laad wax aan markaasi yacni caqli saalim oo sax uusan qof bini'aadan uusan ku hadlin aan idin daawadsiiyo bal muuqaalkaana aniga maxaa u noqday star aan dhicin markasta shirtaas idin sheegaya iga barta waxaa laga yaabaa inaad iska xadkiiska aado oo waxaa laga yaabaa in macsalaameeyo iga barta shirta aniga cunug yarkaa 10 jirka ku istaaga waa la doodaa naagta ku istaaga waa la doodaa odayga waa yelka waa la doodaa ku istaaga madaxa ku istaaga ajaal jikarayaha weligaa niman ilmaha iyo naagaha iska celin rag iska ma celiyo yaan lagu sirin cunug yar waaye iyo naag waaye iyo waxaas weligiina rumaysanina weligii waxaas rumaysanina naag miya ahaa hadday cid baran tahay beer ka silaad cunug yar miya ahaa madaxoga istaag ka soco weligaa ayaan lagu sheekayn sababtaan ku sheegayaa maxamuud saleebaanka naaga dhilooyin iyo qaniisiin ku soo dirayaan miska dhaafay markii waa qaniisi waa dhilma dhahe maya hadhin haddaa ka dhex aragto dhubuq madaxa u istaag beerka laad anaa ka mas-uula ani marka waxaan ahay 80 jir aan ka xishoon 10 jirka qabiilka ugu adag Soomaalida waa ka dhashay nawiyaha
nin Soomaaliya haddaan rabaan hoos u saga habargii sarka la gala wax iga soo saari kara habargii waa igu lafa dagaalame habargii haddaan habargii noo foolo habargii waa igu dagaalame wax iga furfuri karo bini'aadana wallahi ma jirto inay go'aan mooye lagaga baqi maayo markay rabtana kolaas ka joogaya Soomaaliya talow daayir alsoo aakhira miyuusan u diyaar garoobin mise wuxuu isleeyahay adduunka ayaad markaasi ku waaraysaa sanadaha adduunka inta ka dhiman markaasi oo dhan waana arrin la yaab leh waxa uu sameynayo iyo waxa maaragtay sugaya waa kaafiye kala dheeray saaxiibada qaaliga waad ku mahadsantiin haddaad soo gaadhay dhammaadka muuqaalka si aad u hesho dhammaan dhacdooyinka xiisaha leh fadlan youtube-keena Hogol News subscribe noo saar muuqaalkana like ha ka ilaawn fikirkaagana kommentiga hoose nagula wadaag Hogol News baahiyaha bulshada